الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. وزارة خير صاحبك عبد الرحمن بهذا الصحافة ومحسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب شركة جرائد عاوح وكساب سنة حالة الدلك قارهان أرمها الدور شوينك وحأكتهين مدرر وحال السجاي dalkan in doorasho ka dhacdo ama ugu yaraan laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka. runtii waxaan u aragnaa nasiib darro in gogoshiyo fidsan extension la aado gogla fidsan laga soo tegay tii dhuusamareeb iyo tii magaalada muqdisho tii laba ama iyadoo taalo weliba extension la aado. waxaan u aragnaa nasiib darro aad iyo aad u weyn oo soo wajahday dalka Soomaaliya. dadka Soomaaliyeed waxay quudaraynayeen in la helo doorasho heshiis lagu yahay oo keenta xasilooni iyo horusocod, laakiin nasiib darro ma muuqato. waxaan wada ognahay taariikhda dimuqraadiyadda ee Soomaaliya waliba dhowrkii sano ugu dambeysay kufkufka ahayd ama curdanka ahayd ee qoro isku dhiibka ahayd iyo marxaladihii adkaa ee la soo marsiiyey. waxaan wada ognahay marxaladihii ka horreeyay iyo dalkaana wixii uu soo maray. marka in xilligan lagu dhiirado iyadoo la heli karo in laga heshiiyo doorashooyinka, in lagu dhiirado extension, waxaan u aragnaa tilaabo ka leexinaysa qaranku meesha uu ku socday, isla markaasna muujinaysa xukun jacayl iyo kursi isku dhejis. waxaan wada ognahay madaxweynaha xilligiisa waxay ku asteysneed 8 February 2 bilood iyo 3 maalmood taqriiban ayuu joogaa sharci la'aan madaxweynuhu kursigiisa. haddana wuxuu ka shaqaynayaa in extension sharci darro uu sameeyo. baarlamaanka waqtigiisu waa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday. waxa kaliya maanta u furay waxa waaye wada hadalkaas iyo gogosha fidsan in laga gaaro heshiis loo dhan yahay oo keena doorasho in lagu aado. dad badan oo Soomaaliyeed runtii maanta ma filaynin in waxaanu dhici karaan. inshallah dad badan marka ay dhahayeen waxaasaa soo socda waxay arkayeen inay tahay arrin aan suuragal ahayn, laakiin maanta waa dul taagana. laakiin waxaa isweydiin leh xaggee loo socdaa? 4 sano iyo googo ayaa nidaamkaanu ka jira dalka. jid la xiro, dadkoo la cadaadiyo, xorriyaadkoo la qaado, awoodoo lagu takrifalo, intaasaa lagala kulmay. dadka Soomaaliyeed waxay u dul qaadanayeen 4 sano dhammaan doontay hala sugo. maxay ku dul qaadanayaan hadda? arrintaas si cad aan uga soo horjeednaa, waa diidannahay, waa sharci darro. waxaan u aragnaa ammaanadii loo dhiibtay dowladda oo ay la dhumeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahliha. ammaanadan ummadda Soomaaliyeed iska leh, cidna kuma takrifali karto. marka waxaan leenahay hoggaanka dalka waa ambatay, soo noqo, cud ilaa rushdik. meeshaa ku socoto waa khaldan tahay. dalkaanu waa dal jilcan, ma qaadi karo maanta extension. waa xaqiiqo. dhaqaale ahaan uusan u qaadi karin, siyaasad ahaan uusan u qaadi karin, bulsho ahaan uusan u qaadi karin, dhinac walba haddii laga fiirsho uma qaadi karo. waxaan la soconaa dhaqaalihii dalka waa burburay. hay-adihii mataqaanaa dowladda kulligooda waxay barashar saarayaan ganacsatadii. sidaasoo kale waxaa barashar la saarayaa dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba. marka dulqaadka
oo intaas la eg waxaa loo samaynayo waa qaran jacayl. annaga marka aan hadlayno uma jeedno qof gaara, qolo uma jeedno, waxaan ka hadlaynaa qarannimada. shalay xumaanta iyadoo la iska celi karaa laga aamusa, meeshaad aragtayna dhageysa. maanta ma rabno tiyoo kale inaan u laabno. waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsanno, ka hor nimaado sharci ku tumashada, waddada laga leexda ee khaldan inaan ka hor nimaadaan rabnaa. codkeenna si dheer u sheegno, ma wadno wax dhibaateynaya qaranka, bal waxaan wadnaa wax toosinaya qaranka. xaqaan u leenahay, soo hogaaminay, ka soo shaqaynay, haddana diyaaraan u nahay. waxaan u taagannahay oo waqtigaan u soo jeednana inuusan qofna la dhuuman qaranka iyo masiirka ummadda. qofkii raba madaxnimo waxaa loo ogol yahay inuu doorasho galo. waxaa laga hadlaayo waa doorasho xur ah, xalaal ah, loo dhan yahay. dalkan 30 sano la soo dhaafay ajnabiga xoola ku bixinaya. madaxda Soomaalida intooda badan intay yimaadaan madax iska noqonayaan, waan iska baxayaan. laakiin waxaa nasiib darro ah in hadda meel kale lala sii aado. marka qofkii fursad haysta waxaa la rabaa inuu aado fursad oo madax ku noqon karo, oo xalaala, oo deganaansho keeni karta. intaas markaan ka gudbo, caawa waa 12 abriil, waa habeenkii ciidanka militariga. waxay ahaaday horta anuu hambaliyaayo, anoo ugu hambalinaya magacayga, magaca saaxiibaday, hawsha qaran ee ay hayaan iyo difaaca dalka, sugidda amniga ay ka qayb qaataan, aad iyo aadaan ugu hambaleynaynaa. laakiin waxaa nasiib darro caawa in lagu soo aadiyo in ay berrito xildhibaano ama shacab ay qora afka ka geliyaan oo xorriyaddooda ay ku qaadaan. aad iyo aad uga xunna. waxaan ognahay fadhigii ugu dambeeyey xildhibaanaa laga saaray, baarlamaanka laga joojiyey, waxaana loo adeegsaday ciidamada qalabka sida. marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waxay ku dhisan yihiin sharci. waxaa loo dhisay inay ilaaliyaan sharafka iyo amniga iyo madax bannaanida dalka. marna looguma talagelin in lagu qaado xorriyaadka, in lagu marooqsado xukun. marka waxaan ugu baaqaynaa dowladdu amaro khaldanay bixinaysa iyadoo waqtigeeda oo jiro, waa loo soo dulqaatay. ayadoo waqtigeeda dhammaaday inay amaro khaldan bixiso oo saraakiisha ciidamada ay u hoggaansamaan waa dembi aad iyo aad u weyn, waana qaran dumisnimo ay ka qayb qaadanayaan. waxayna ka leexanayaan hadafkii wanaagsanaay oo loo aasaasay. ciidanku waxay oggolaadeen naftooda, waxay oggolaadeen waqtigooda, waxay oggolaadeen dhiiggooda, waxaana loogu talagalay inay ka hortagaan cadowga Soomaaliyeed. waxaa la socotiin ayadoo lagu mashquulsan yahay xukunka in lagu boobo qayb ka mid ah, qaybna magaalada daafaheeda lagu dilaa oo ay ku dhammaanayaan, ay ku dacdaraysan yihiin. marka intaas waxaa sii dheer in la qaybiyey oo loo qaybiyey qayb dhow oo la daneeyo iyo qayb ciidanka ka mid ah. taasna waxaan u aragnaa burburin ciidamada qalabka sida, gaar ahaan ciidanka militariga. waxaan ugu baaqaynaa saraakiisha ciidanka inay ixtiraamaan sharciga, una hoggaansamaan sharciga, dibna u fiiriyaan waxa loo aasaasay. waxaan rabaa inaan u gudbo shacabka Soomaaliyeed meelay joogaanba. annaga marna uguma yeerayno wax qarankan dhibaateynaya dadka, laakiin waxaan ugu yeeraynaa waa in la ilaaliyaa sharciga. marka waxaan leenahay dowladdu waxay ka leexatay sharcigeedii, waxay ka gudubtay mandatekeedii, waxay ku fadhidaa sharci darro. haddana waxa ay samaynayso waa sharci darro. marka waxaan leenahay dhammaan aan difaacno sharciga, waxaan ku wada joogno waa sharciga in la difaacana waa muqadas. maxaa yeelay jiritaankeenna ku xiran. ummaddu waxa ay ku heshiisa waa inay fulisaa. marka annagoo heshiiskaas qaran ee ahay 4 sano, madaxweynaha marka la dhaariyo xilligiisu inuu ku dhammaanayo 4 sano, in la ixtiraamo. waxaa loo ogol yahay inuu ka shaqeeyo, hormuud ka noqdo dalka doorasho inay ka dhacdo. laakiin nasiib darro ma dhicin. ma raba inaan aad u dheereeyo hadalkayga, laakiin runtii waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed inay dareenkaas nala wadaagaan.
maxay ahaato kulligooda ay og yihiin macnaha ay ku fadhido in la ilaaliyo sharciga, dhibaatada ka imaan karta sharciga in laga gudbo. bani aadamku marka khalad oo gale ee laga aamuso, khaladka gale ee laga aamuso waxa u qaataa inuu saxan yahay, laakiin ma saxna. dadka Soomaaliyeed iyagoo arkaya ayay aamusnaayeen. sababta ugu weyn waxay ahayd in la helo marxalad kala guur ah oo dadku codkooda ay dhiiba karaan. waxaa laga hadli jiray muddo dheer one man one vote ama one person one vote. taas iska daa hadda waxaa laleeyahay tii lagu heshiiyey. waxaad ogtihiin madowga murashaxiinta heshiiskii ka dhacay dhuusamareeb iyo kuwii ka dambeeyey xamar ka dhacay way soo dhoweeyeen, qaybna kama ahayn. waxaana u muuqda dulduleelo fara badan. intaasna waxay ahaan in la sahlo doorashooyinka. haddana waxaa dhacaya maanta waxaa arkaysiin. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa ciidamada qalabka sida shacabka Soomaaliyeed beesha caalamku inay codkaas dhageystaan. aad iyo aad u mahadsantihiin.